أنا قادو أصحابتا إن برجكي كشدن تايمانتا يا jikadeen anaga mugdi waaye sida hore idinkugu sheegay meesheena koronto ma lahan xaafad cusub waaye hadda Soomaalida dhisanayso marka koronto wali ma soo gaarin waxay dhaceen waxaan sugaynaa dhowr xaafadood dhowr guri markaas kadib koronto soo xireynaa marka meesha ku karka noo yaala jikada waa mugdi marka inta iftiin ah burjikada ku karinaya qadada dhuxusha ku karinaya haddii oo qorax jiri lahayd daaqada intaan furo iftiin ay soo gali lahaay meesha dhinacaas ku karka yaala ku karin lahaay laakiin qorax ma jirto qabowaa lagu jiraa dadka Nairobi joogay la socdaan bilaa qabowha ku jirnaa hadda qabow waay cirka dhow madow yahay iftiin ma soo galay marka maadaama koronto aan haysanin waxa isdhaa meesha mugdi ay ugu tahay mar burjikada ugu dub intaan asxaabtaada ma ka maqnaan kartidee waa kaasa bariiskan bariis isku karis aan karinaya bariiskan hadda ka hor wiil walaala iga soo codsaday commentiga isoo qoray wuxuu dhahay bariis isku karis noo soo gali haday macquul tahay sorry walaalaan kala soo daahay koronto la'aan idinka ka maqnaay wax kale ma ahan marka hadda bariiskan karinaya bariis isku karis waa inta waxaan ku haystaa 2 xabo oo yaanyo 2 xabo carrot hilib ari waaye حبة بصل وين أنت كويستا هذا وين تاع بصشة وين تهاي سيدو كلا أنت حكويستا طون 6 حبة طون يعني حباش كواتومي مويه أنا كوتومي ما دام عن هيسنين كورنتو ماشين تمكشيدي كري ودبكان saara marka kulay kadib waxaan ku tumay maxaa la dhahaa mooyaha ikasha ku tumay mooyaha la ku tumay marka xabashka waa kana idiyaar qudaartana soo jarjarnaya insha Allah waa isku soo laabaneynaa bariiska aan karinayno waa isku karis waa ila arki doonto insha Allah qudaarta soo fiiqana aan soo jarjarnaya kadib waa isku soo laabaneynaa insha Allah soo hoolay hargaba ahaa asxaabta codkayga hadda si fiican u maqlaynin karaale ahaada marka toontan waa soo xoqay iyadana toonta waa soo hoolay hilibkina waa kan intuu noogu diyaarsan yahay xabaajiina hadaayaba idin tusay xabaashka waa soo tumay koronto ma haysan anaga mashiinku ma shiidin waa tumay xabaashka xaaga xabaasha lagu soo gaday markii hore uu ka dhamaaday marka hadda xabaashan tumay aan ku soo shubtay marka intana labada xaq yaanya aan soo xoqday ku jirto yaanyada waa soo hoolay ayadana ama waa soo xoqay marka bariiska way kareen waan ka dejinayaa waxaan soo saaranayaa digsiga aan bariisku kareen soo saaranayaa saliidaan ku soo shubtay digsiga marka saliida noo soo kululaatay insha Allah aan ku soo darsanayaa basashi basasha ku soo shubanaya bismillaah asxaabta basasha brown ee noo soo noqotay hilibkan ku soo daray kamarada inay ii shidantaa malaynaya ma ii shidneen marka hilibkan ku soo daray bis ha noo soo shiilmo hilib marka noo soo shiilmo aan ku soo laabanayna insha Allah oo noo shiilmo waxaan ku soo darsanaynaa yaanyada yaanyada hilibkaas ku shiilmaan haddana waa isku soo laabanayna insha Allah oo noo soo shiilmay asxaabta waxaan ku soo darayaa carfiskii inta waxaa ku haystaa toon aan soo xoqay karotkana waan ku darayaa soo daraya
qalaaji daraya bariiska hadaya biya la dhigay hadda soo darsanaya bariis 3 galaas waaye laakiin qof walba qiyaasta gurigiisa la xiran tahay bariiska noo soo shiilmo ha isku soo laabanayna asxaabta bariiska oo noo soo shiilmay biyaha ku darsanaynaa bismillah biyaha haday kirla ay ku saarnayaan ku soo shuwaya bariiska biyaha la dhigay biyo badan ma qaadanayo marka biyaha ma ka badinayo bas baan ku soo darsanaya bariiska inaa shiishid hataa qasma isku karisa duuya waxa sameyn kartaa marka hore marka biyeysid ku dari kartaa bariiska hadana ana soo karo waa isku soo laabanayna insha Allah oo qalalay qoyaan yar meel dheer u leeyahay oo qalalay laakiin wax yar wali qoyaan waaye biyo ma ku jiraan laakiin waa qoyaan yar inuu qalala raba waxa sameynaa marka daboolka maadaama aan dhuxul ku karinayo digsi dhulkan dhigaya kadib daboolka dhuxush ku guraya waa ilaa ka doonta insha Allah dhulkan soo dhigay digsiga marka hore intaan dambas ka soo baxsanaya dambasta saaraya kadib dhuxulan saaraya si daboolka uga dhowdi hadda dambasta saarin daboolku madoowaanaya dhuxulan soo baxsanaya hadana dhuxulan soo saare korka soo saare saa arkaysaanba si oo u huuro bariiska sida foornada camal ma laha ya waa foorneynayna ma laha waa huurinayna bariiska si fiican ugu qalalo oo marka saan la sameeyo bariiska hatta macaan furfuro noqonaya marka hanoo huuro waa soo laabanayna insha Allah asxaabta bariiska oo noo huuray aragtaa ma sha Allah tabaarak rahmaan sidaan qurux badan ku soo baxay foorno in la geliyo ovenka in la geliyo camal oo noqday marka waa soo guranaynaa asxaabta kana bariiska soo guranay ma sha Allah tabaarak rahmaan saasoo furfur u yahay in oven la geliyo camal
marka kuukar bes ee wax lagu kari karaa uma leyninayaa dhuxusha waata sidaas quruxda badan ee u karisay maasha allah tabaarak raxmaan marka ka faa'iideysta haddii aad oven haysanin maxaa la dhahaa kuukar burjukada ama dhuxusha wax waa ku karsan kartaa wixii aad haysatid isticmaal insha allah waa kas bariiskas quruxda badan dhuxusha ku kariyay sida aragtaanbo ya maalin kasta ama dhuxusha la wax idinku soo kariyaa maasha allah tabaarak raxmaan aragtaan bariiski saasoo furfur u yahay marka haddana haddii dabka kor laga sii saaro saas camal daboolka intaad dhuxul saartid saas camal u saartid maasha allah bariiska dhan macaan noqonaya furfur caraf ka dhigaya way ka dhigaysaa dhuxusha maasha allah tabaarak raxmaan ka faa'iideysta asxaabteyda kabsar caleen kuma darin bariiska sida arkayseen anaa koronto ma haysana marka fridge-ka ma gashano qudaarta marka kabsar caleen waxaan soo gadanaa wax yar oo 2 beri 3 beri aan isticmaalna kadib way halaabay kabsar caleenta marka insha allah ka faa'iideysta walaalay qaaliga assalaamu calaykum